السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا خيارتي تقييمي قدرتها لقى مضن halkan waa cagadaha show fadlan channelka subscribe noo saara like daha oo share gareeyo asxaabtiina la wadaaga aad u mahadsantihiin ma sha Allah asxaabtiina aad baan idin jeclahay sida quruxda badan ee aad noo daawataan ee aad waqtiga noogu bixisaan ma sha Allah waa ku faraxsanahay waxaan leeyahay inta comment ka soo qorayso waxaan leeyahay gacantiinu balaayo ma aragto wadnahatintiin marka asxaabtayda maanta barnaamij ayaa miiska noo saaran barnaamijkaas oo ah run ahaantii waxaad ogtihiin baryahan dambe in mataqaanaa ay soo badanayaan ama ay soo kordhayaan lamaanaha jecel in ay mataqaanaa aadaahde dad jecel in lamaananimadu YouTube-ka ama baraha ay isticmaalaan si ay ugu kala kacdo u sameynay lamaananimada ma aha run ahaantii taas wax wanaagsan ma aha sababtoo ah haddii aad gabadhan Soomaaliyeed ee walaasha ah ee aad adigu u soo guursato in barta aad isticmaasho dadka ku xiran si ay kugu sii kordhaan ama aad horumar ugu gaarto in aad gabadhan adoon jecel dhab ah oo kala laaba adoon u heenin ama mataqaanaa aad mataqaanaa si kugu kala kacdo aaladda markaas aad isticmaalayso inaad soo guursato sharciyan sax ma aha sababtoo ah waxaan aragnaa lamaanayaal fara badan oo muddo gaaban waliba muddo gaaban ku kala irdhoobayo maxaa keenay labada qof inay kala irroobaan iyagoo shalay isjeclaa oo dad lamaana ahaa oo kala iyo laab isu jeclaa inagana noo soo bandhigi jiray lamaananimadooda si qurux badan inay u dhisan tahay oo ay yihiin dad isu jecel si kala iyo laaba taas waa dhanka wiilka waa dhanka gabdhaha haddii aan ayagana ka hadlo iyaguna waxaa jira gabdho waxaa jiro YouTuber ah oo waaweyn oo iyaguna macnaha u sameynayo si YouTube-kaas uu kala kaco lamaana raadinayo ama lamaana sameysanayo iyagoon dana mustaqbal iyo dana horumarineed iyagoon ku fikireen kaliya inta kaamiradaas horteeda la fadhiyo in jacayl dhaba inagana loo muujinaa haddii aan nahay dadka ku xiran page-kooda ama channelkaas markaas ay leeyihiin labada qof ee muujinaya lamaananimada dhabta ah run ahaantii waxaan kala ognahay on 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 midna ah ka badan in mataqaanaa lamaanayaal qurux badan oo shacbiyad ku leh dadka Soomaaliyeed in ay markii ay guursadaan ama lamaananimadu ay sameeyaan muddo gaaban oo 2 bilood 3 bilood haddana in lagu irdhoobayo run ahaantii taasuna waa mid mataqaanaa cajiib ah oo aad u xanuun badan run ahaantii markii horeba hadduusan jacaylkan uusan dhabka ahayn oo gabadhan aadan mustaqbal in aad la qaybsato aadan macnaha u guursanin kaliya in ay ku kala kacis u guursatay ama wiilkan haddii aad u guursatay inuu ku kala kiciyo oo horumar ka gaarto run ahaantii taas inaysan meel gaaraynin aan aragnaa meel gaari sababtoo ah waxaan ognahay YouTuber waaweyn oo lamaana samaystay oo lamaananimaday muddo gaaban oo 7 laga bixin haddana la kala irdhoobayo la leeyahay hebel iyo heblaayo way isfuraan hebel iyo heblaayo way kala irdhoobeen run ahaantii waxaan dhihi lahaa taas ma aha wax habboon waxaa fiican mustaqbalka marka aad ka fikirayso in aad si dhab ah ku meelgaarnimadu sharciyada diinta islaamkana ma ogolo ku meelgaar haddii aad qoftaan u guursato ama gabadha wiilkan aad u guursato ku meelgaar ahaan in uu ku kala kiciyo ama muddo gaaban aad nolosha qaybsato taasu diiniyan sax ma aha sababtoo ah waxaan aragnaa inta badan dad qurbo joog ah oo niman u badan way imaanayaan muddo 2 bilood 3 bilood ay joogayaan inta ay joogaan gabadha ay guursanayaan hadhow qofkii markuu laabanayo gabadhi wuu furayaa taas sax ma aha qofka haddii aad lamaana iyo mustaqbal iyo jacayl la wadaagayso waxaa habboon in aad ay dhabka ahaato kaliya waxaan kala ogaanay oo soo ogaanay dabagal dheer aan sameeyay waxaan soo ogaanay lamaanayaasha aan hadda ka hadlayno kaliya in heshiis leeyahay inta kaamirada horteeda la fadhiyo
run ahaantii kaamarada horteeda inta la fadhiyo waxaa la muujinaa jacayl fara badan run ahaantii aad hataa markaa fiirsto xaflad alla ilahay meeshaan reeraa ka dhismay qoysaa ka dhismay saa u leedahay laba cisho kadib waxaa maqlay heblaayo iyo hebel way kala fagaarayeen way kala carareen war maxaa keenay baashu muwaan markii hore lasoo dhirinin oo lasoo macnaha toosin oo macnaha waqti lagu soo bixinin macnaha waxa Soomaaliya ku maamulada geedka orod lagu fuuro orod lagu dagaa marka asxaabteyda qiimiga qadarinta mudan aad ba u mahadsantii aniga waxa xoogaa dameerteeda dhaqaajiyo waxaan jeclahay in aan idinka la qaybsado sababtoo ah idinkuna fikrado kale ka muhiimsan in aad haysaan oo macnaha aad soo kordhinaysaan waa muhiim وانا قصب mid kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadka fiidiyoyada waxyaabaha muhiimka ah oo aan ka soo hadlayo dadka ii soo diraayo sidoo kale idinkana waxaan codsi maanta aan halkan kaga faa'iideysanayaa in aad mataqaanaa wixii tale iyo tusaale oo aad hayso hadii aad waxa laga yaabaa in ay iga aqli badan tahay in aad qof garaad tahay in aad mataqaanaa sheekooyin in aad taariikho dhacdo muhiim ah aad hayso marka anigu waxaan ka codsanayaa walaalkay Soomaaliyeed ee daawanaya ee ugu xiran in aad dhacdada ama taariikhaha maankaaga ku jiro ama aad hayso in aad ila soo wadaagto anigana markaas waxay ii fududeynaysaa shacbiyada igu xiran in aan la wadaago iyaguna ay waxyaabo badan ka faa'iidaan aad baad u mahadsantiin asxaabteyda qiimiga qadarinta mudan aad baan jeclahay fadlan waxaan ka codsanayaa maanta fikradaha aad hayso in aad ila soo wadaagto telephone numberkayga waxaan soo saarayaa shaashada sababtoo ah waxa jiro adiga maanta barnaamij aan hadii aan soo tooso maanta barnaamij aan diyaariyo adiga hadaa barnaamij ii soo tuurto oo aad idhaahdo agadaha buu dadka la wadaag hadaa idhaahdo shaqadii way ii sii fududaanaysaa shacbiyada igu xiranna way sii kordhaysaa waad ku mahadsan tahay daawashada videogan waxaan ku leeyahay waqti walba aad joogto ha ku wanaagsan hadii aad xanuunsan tahay xanuunka Allah ka caafiyo hadii aad muraad leedahay muraadka Allah ku saalo waad mahadsantiin asxaabteyda waa walaalkiin oo idin leh tan kulanti dambe sida iyo amaana Allah